saaxiibkay Timir oo isaga wariyay dhinaca siyaasadda noo falanqeeya ayaa waxa uu rabaa in yar oo ogeysiisa inuu usoo gudbiyo dadweynaha Soomaaliyeed kusoo dhow Timir barnaamij awal aad iyo aad baa u mahadsantahay marka hore notice ka kooban aan gudbinay waxa weeye maadaama la galay xilligii springiga haddana lagu jiro samarkiina uu ka xigo waxaan dadka Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed u sheegi lahaa laba arrin inay ka dadkoonaadaan marka koowaad Henry County waxaa ku soo kordhay waxa la yiraahdo jadeecada waxa cudurkan u naqaanay oo hadda ku soo biday oo laga yaabo in caruurta yaryar iyo dadka waaweyn inuu saameeyo marka iyadan arrimahaas in walba meesha caafimaadku ku leeyahay kala xiriiro si hadduu talaal ka helay haddii kalaba midda labaad waa xilligii fuluga waqtigan hadda la joogo cawil marka fulugaasi dadku inay ka taxadaraan oo hadduu qofka 55 ilaa 75 jirka ah waxa weeye waa inay la xiriiraan caafimaadkooda iyagoo u sheegaya hadba fulugaas hadduu ka dareemo hadduu oo heer kurkiisa uu gaaro meel sare inuu u sheego mataqaana dhakhtarka inuu la xiriiro ama 911 inuu marka labada arrin baan u sheegayaa oo muhiimka ah Timir aad iyo aad baad u mahadsantahay sida dadweynaha Soomaaliyeed ugu soo gudbisay ogeysiiska waxaan filayaa in ay hargabkaas sidii ugu hortagi lahaayeen falankeeda ay galaan insha Allah hadii la wada ogolaado haatan waxaan qaadanaynaa khadka telefoonka hello عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا قاعد. سلايفة وقدا ونيسا سما تي في أو شركة واحد نوجو قلبه وريه أو كتر سما تي في هاولا على ستوس وقدا ونيسا. أيوة ما استعمل. يا دوان ما سنت أدام دولا. إن داود يال هاتن وحن قد قلنا برنامج هذا نقيبها كارسيدة أتكور هيسان شركة مقالة نيروبي وحلوه مقعدة شركة وضع تشجع الصومالي ده. هذا بقى تمر. ما أنت واحد دنيا بل وحياة ربنا وحكاوي ديو ما دام السياسة أقولون تلاش إن شركة وضتشجع دلك الصومالية قرمده مدبي صومالي واحد جري شرب بدن أو صومالي اللي وقبته يدو أن هشيش لو أهنا ولا تجا دولة فدرالك حكومة دي فرماجو هو جامنا شركة واقع قادعين إن قدومي برلمان ك ويمي أو شركة إنه كغيب قلي رال أيوكي هاي اسمه القبلات كبوتلان أو يجونا آديا دسور دوي شركان وحياة بدن أيام مدهش كل شيء دجالو يقح يبركع يأبار يهوشوا ميرا مركا محاد وحفا فاهنا نوجا هيسا أديكو وقتنا سوق قابلنا يسألها أنا أي جيران ضد بدنا نسوي عدون إن شاء الله. أول وما صنطة مركا ورت الشركة ووضع هذا الكا وهذا وبهيجة كل واقع ما عمد هذا باللوذي وحواي حكومة دي عبد الرشيد أنا عبد الرشيد على شرمار كذا لسعودي وحب الله وضع هذا الكوحية الدولة ده سيد هذا وحلات دري إن أي ضد كمعارض كا maamul goboleedyada inay soo dhaweyso sidaan la socono gaalkacay shir weyn baa ka dhacay ra'iisul wasaarihii hore ayaa shirkaas waxaa ka hortagay dowladda shariifka marka taasina waxay burburisay in uu ra'iisul wasaarihii iscasilo dee UN-ku marka hawshii un bay wadaan UN-ku waxay wadaan hawshii uu la qabanayay oo ahayd in dowladdani federaalka transitional government-ga inay soomaalida kale soo wado oo ay keento marka sidii unba hadda mahiiga bilaabay ولد عبد الله نساس وذي مركو حاول وين مركو مامل قبرية اسمها إمام القبرية الجربة دولة وحكوا خصبانتها إن الله هذا شركة نيروبي بيشان برتمية ويل كوريها إنه شيء جينا ده وحوا إن دولة دي أي هشوا كابي معناه إن أي هشوا كابي إلى دولة قرن بالروا إما إيش لقى ما السبب تكون دي حكومة محيطها شركة ولا تشركة أوكي that's a good question سبب تكون دي وحواي وحي مركي هو أقرن لبك جرا وحي تاي oo xataa UN kan ku eedeynay waxay tahay mas'uuliyiinta hadda jira oo ugu sareeya madaxweynuhu waa uu sheegay Faroole ma ogola dib u heshiisiin sababta u diidayna marka sababta u diidayna waxa way iyaga yaqaan lagama jawaabi karo laakiin hadduu nin mas'uul oo dawladda Soomaaliyeed sheeganaya oo la yiri Soomaalidii u tag ma taqaan lana hadal diidan taasay yaqaan sababta u diiday maamul goboleedka Puntland aad u taageeray shirkan waxa kale fiyaad leedahay in maamul goboleedka Puntland haatan shirkan si toos u taageero waxa weeye Puntland sideeda constitution-keeda waxa ku jira Soomaaliya in isu keeno marka constitution-keeda bay ka jawaabaysaa way waday markii horena mataqaana markii shariifka la doortana way taageertay dawladda shariifka yaani waxay rabtaa Soomaaliya inay isu timaado qarnamadii Soomaaliya inay soo that's why u taageeraysaa Puntland ujeedada kale ma laha تمر ورالي إجاه إن ير أو تعسية أيام ربنا هالكدر أو هذا يسوق قارتي إنا لله وإنا إليه راجعون واحد داودي الجريودي فرحية أحمد بوا أبهد مقالة هرجيسكو جريودي صاحبك محمد علي أن أوهد مركا وحن رجع إلهي وجبر يا سمري إيمان إنه كسي أنتو كجريودي أنت جندين الله واسع أيام لنا قبرك الله واسع أيام لنا هاي أنت اللي مثلا الله نحرس داودي برامج كنا أيام سيودنا تمر
baarlamaanka iyo xukuumadda muxuu yahay khilaafka u dhexeeya khilaafka baarlamaanka xukuumadda u dhexeeya way caddahay waxay dowladdan caado u yeelatay waxa dowlad walba ay ku burburto waxa waye baarlamaankii baarlamaanka xukuumaddiisa madaxdiisa sare baarlamaanka iyo xukuumadda isqabsata waxayna isku qabsanayaan waxa weeye ma yaqaanaan waxay ku heshiiyeen yacni constitutionka la suubiyey oo dowladda isugu timid midkood fahamsanayn marka nin walbaba nin baa dhigta waxa ugu soo sheega oo nidaam dariiq gaar wata hadda markaynu eegno gudoomiyaha baarlamaanka dibaddu ka yimid markuu dibadda ka yimidna wuxuu yiri inuu suubinayo mataqaan baarlamaanka isu keenayo isagoo u jeeda inuu madaxweynaha meesha ka rido waa wax lagu soo yiri isla markiina xukuumadda iyo madaxweynaha dhinac bay yihiin marka hadda sida muuqata baarlamaankii oo dhinaca xukuumadda iyo madaxweynaha oo dhinaca marka kulligoodna waxaa ka tanbadinaya arrinta UN-ka waayo iyaga wax xuquudiya oo wax si United Nations ka waaye teedana la raacaya okay waxa sida taayirkii u wareegay siyaasadii Soomaaliya waxa hadda ishaya oo la leeyahay waa ishayana waa Soomaali mana muuqato Soomaali isaysa shirarkan dib u heshiisiinta Timiro bal nooga waryaal la heshiisiinayo dirsan wax aad iyo horta su'aal muhiim ah wax la heshiisiinayo ma jirto waxa weeye Soomaaliun baa la sii kala qaadaya markii la fiirsho international community-ga Soomaali ku dhex jirta mostly Soomaali daacad laga ma runta markii la fiirsho because wadamo badan baa Soomaali inta dagaalku sugaya burburay oo la dajiyay isla markaasna mataqaan nidaamyadooda dawladooda loo dhisay marka shacabka Soomaaliyeedna isma rabaan iyagii oo hadeertaan uu baabay qaranka Soomaaliyeed caalamkeen waxba uma dhisay that's the problem telefoon baa sugan ma waxaan u maleynayaa daawada in haatan oo noo soo galay khadka telefoonka hello TV-ga si gaab walaal TV-ga assalaamu calaykum calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu TV-ga si gaab walaal TV-ga si gaab qofka hadlaya aniga ma ahani qofka iga galay ma TV-ga oo gaab TV-ga iska gaab xogaa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu su'aashaada walaal walaal su'aasheeda waxa weeyaan nimankan sii ordaya maalin walba dhahaya anigu aqli fiican baan la tagayaa oo mid walba marka hore leeyahay markuu yiraahdo ka bacdina kii kale talenkiisii buu maraya maxay ku dhacaysaa sheekadaas baan garan waaya anigu bal waxay leedahay macnahu dadka siyaasiyiinta waa runteed waa wax hadda aan ka hadlayna waay yani siyaasiyiin qeybiyo xukun baan ku wadaa waaye waa weli leenka ku jirtaa waxa waaye waa runteed gabadhu waxa waaye Soomaaliday dad aan bislayn siyaasaddan u bislayn dadkuna ayna dooran baa mar walba inta loo geeyo waana wax mahiiga uu hadda rabo inuu joojiyo mahiiga runtii wuxuu yiri yani maadaama lagu fashilmay shirarkii hore sabaha loogu fashilman ay tahay dad aan mansabka ama siyaasadda Soomaaliya aan aqoonin baa loo dhiibay hadda wuxuu rabaa marka in aqoonyahankii odayaashii isimadii la isu keeno marka shirka shiradu way siin ma runtii waxa weeye in laga wada hadlo sidee Soomaaliya la isugu keeni karaa marka ay UN ku dhigay halka su'aal baa iga soo baxday sidee Soomaali la isugu keeni karaa markay dhacdo Soomaalida la isugu keenayaa waa ayo oo dirsan baan ku yiri oo hadda la rabo in dib wada sameeyo heshiis la dhex dhigo waxaad ka waraysaa hadda raaliga daawadayaal haatan waxaan qaadanaa khadka telefoonka ku soo dhawaada barnaamijka السلام عليكم يسوي واحد مثلا فريق كذا مو حلوة كاسماء يا حلوة كا ما فكرت أنا فكرت أم بايا طبعا ما قايل ما سؤال بقى بتولى فكرة إذا أفطر إلى لبعض تنكتا بحث تومالي تبعت هذا وقفت عليه وأكفى إيدي سني waxaan uga faalleynaynaa wax badan ayaa loo baahan yahay in la soo gudbiyo dadku waxay wax ku ogaadaan waa idaacadda walaal idaacadduna waxay u shaqaysaa waa dadka waxa loogu talagalay idaacadda in laga hadlo ee in la aamusnaado looguma talagelin waxa haddii la aamusana ma hagaagaan marka dhammaanteen waxaan u baahannahay wax idiin soo gudbiya waxyaabaha socda si aad adigu laftigaaga ula socoto hadda waxaad soo wacday TV-ga waxaad u soo wacday waxyaabaha ka socda inaad ka hesho answer marka iyada laftigeeda ayaa waxay tahay answerkii TV-gu wuxuu u furan yahay inuu soo gudbiyo wax socda walaal aad iyo aad baa umahadsan tahay okay hello السلام عليكم وعليكم السلام walaal magacayga Faisal la yidhaahaa waxaan rabaa inaan ku darsado fikrad oo yar oo dadkeena Soomaalida kulligeena ku wada fahanno
هاي midda aad iyo aad u jeclaa ku darsada waxa waaye Soomaalina nabad ka dhacaysa ma malaynayo ilaa la kala bixiyo wixii dhaqan ah iyo wixii diin ah اوكي وسؤال wanaagsan كول كلام قبلنا marka isaga soo gaab walaal waa la soo gawa aad iyo aad baad u mahadsan tahay haatan waxaan qaadanaynaa khadka telefonka kusoo dhawo walaal barnaamijka السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا سؤال شاذ سأشعر هو أبغى جعلها برمشاء سوق التاع ثانك يو ولاal aad ما سنت ولا هاي شيء ما قال كنت واحد كثير ساميدي هنا مركا وين تبغى تقرأنا أبغى هلا مع برمشاء سوق بسماشة تاجر ليش تقصي ولا هوشة السلام عليكم عليكم aad iyo aad السلام baad u mahadsantahay walaalle gabadha sama t v soo support garanaysa waxaan rajaynaynaa in ay dadka Soomaaliyeed sama t v u noqoto meesha kaliya ay wax ku ogaadaan waxaan ku dadaalaynaa sidaan wax soo gudbin lahayn اوكي وهو timir ها bal barnaamijkeena aan guda galno ها waxa la sheegaa mar walba in ay jirto dib u heshiisiin ها hadda marka dhinac dagaal baa laga wadaa oo abaabul dagaal iyo barakac baa laga wadaa dhinacna waxaa la leeyahay wada tashi baa laga wadaa sidee bay isu qabanaysaa marka ها runtii hadda markii la fiirsho waxyaabo badan baa cawil ka baaba'ay dalkii qabiilkii waa baaba'ay dagaalkan waxa wada waa shabaab shabaabna dadku ma jeclo there is no problem laakiin mushkiladda taala waxay tahay dowladdii Soomaaliya qarannimadeedii transitional federaalkii mas-uuliyaddeeda qaaday baan ogolayn in Soomaalida degan ay la hadasho that's the main thing okay timir dhibka jira taa way su'aal bal kana rabo inaan ku weydiiyo dowlad la'aani waxay dhaantaa dowlad xun ها marka haddii waxaan ardayda raallinaga ahaa su-aasheeda usoo noqon doonaa timiro khadka telefonka ayaan qaadanaynaa kusoo dhow walaal barnaamijka tv-gana iska gaabi walaal okay wax su-aal miyaa qabtaa oo ku maqlayna walaal su'aal ma qabo laakiin sama TV waa TV-ga kaliya oo ugu fiican magaalada aad waa maasanta keena qabiil iyo waxa idinkuna kuwa kale way ku shaqaysaan idinku Soomaalida u adeegtaan waana mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay wiilka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee dareensan qaabka ay sama TV wax u soo gudbiso waan ku mahad celinaynaa haatan waxaan qaadanaynaa khadka telefonka kusoo dhow walaal barnaamijka walaal iska gaabi tv-ga iska gaabi عليكم السلام تي في ولا iska gaabi sabteen waa fiican walaal tv iska gaabi والله رجع سنة TV-ga aad baan u dhaqmayaa wax su-aal miyaa qabtaa walaal waa salaaman tahay su'aasha aan qabo waxaa weeye qoladii shariifkii dowladdii waqti iskaga darsaday waa gartay marka wax dastuurka ah oo kaga hadlay arrintaana ma jirta isaga farmaajo go'aansaday inay ku darsadaan waqti dagaal iyo abaabul iyo barakicin horlana waa ku jiraan dowladdoodina waxay dhaafi lahadaa 2 kilomitir ma intaasaa su-aashaada walaal su'aal ma waa walaal bas waa fikrad marka su-aashaada waxaa weeye maxaa looga hadli laayahay international community-gu uga hadli laayahay waqti kororsiga aan cidina isla ogeyn waxaan u malaynayaa xilliga waqti kororsiga haatan shirka wadatashiga ee ka furmi doona magaalada Nairobi ayaaba ku saabsanba in looga hadlo ku darsashada xilliga waxyaabaha khilaafka keena bayna ka mid tahay waxyaabaha international community-gu ay ka dideen oo ay leeyihiin waxba kama jiraan xilliga lagu darsanayo daas waa isugu yeereen maamul goboleedyada haatan ka dhisan Soomaaliya marka taas ayaan kaga jawaabaya arrintaas waxaana la socon doontaa barnaamijyada live-ka oo shirkaas ka bixi doona oo sama TV soo gudbin doonto insha Allah haddii Ilaahay idmo waxa ku sugan stuudiyadeena magaalada Nairobi ee wariyaashana sama TV waxaan qaadanaynaa khadka telefonka